بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وبشير عبد القادر بوتان runtii waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan la qaybsado tiiraayada dalka Soomaaliya dhibaatada mar walba ka soo dhacda murugada leh oo naxdinta leh runtii waxaan maanta aan ku suganahay dalka Switzerland dhawaan waxaan ka yimid magaalada Muqdisho waxaan runtii ii muuqata dhibaatada iyo khasaaraha loo geystay bulshada Soomaaliyeed mar walbana dhibkaasi loo geysto waxaan uga tacsiinayaa bulshada Soomaaliyeed dhibkaasi soo gaaray in Ilaahay ku dhintana jannada firdaws Ilaahay ka waraabiyo kuwa dhibka geystana Ilaahay inuu naga qabto mar walba bulshada Soomaaliyeed waxa asiibta masiibooyin taasoo daryeel la'aanta dawladnimo iyo waliba dadka mas'uuliyiinta maanta ka ah shacbiga khasaare kastoo ka dhacda dalka Soomaaliya iyo dhib kastoo ka dhacana mas'uuliyadeedu aysan dawladda Soomaaliya aysan dhabarka saaran oo qofkii dhinta maanta uu ka dhintay dadkiisii dhibaatada iyo khasaaraha mar walba dhacaana aan cidna maartay meeshaas dawladdu aysan ummadda Soomaaliyeed aysan u gargaarin waxaan runtii aad uga xumahay oo aan uga xumahay mar walba dhibaatada soo noqnoqota qaasatan dalka Soomaaliya dhibkaasi naxdinta leh loo geysanay bulshada Soomaaliyeed runtii dadkii ku dhintay dadkii ku nafwaayay Ilaahay sabr naga siiyo waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in isbedel imaan doono sanadkan cusub insha Allah ta'ala bulshada Soomaaliyeedna aan dalkeena iyo ummaddeena u duceyno aan ka istaagno hurdada waa u jeedaan maanta Soomaaliya iftiinka soo baxaya haddana dib u sii laabanaya halkii dawladnimo marka ummadda Soomaaliyeed meel baa joogtaan waxaan idinkaga digayaa inaad dalkiina iyo diintiina difaacataan oo aad ka hortagtaan dadka khasaaraha iyo dhibaatada iyo burburka dalka Soomaaliya ku wada meel walba joogtaan gacmaha isqabsada Soomaaliya kalama maaranto cid walba oo Soomaalina waxa aan wada leenahay waa inaan wada ceshano waa inaan wada xafidano dawladnimadana waa inaan wada difaacano dalka Soomaaliyana waa inaan difaacano dalkeena anaguna sugaya marka cid walba yeeshan waarkii wax ayada qaas u ah wax ayada gaar ah waa wada leenahay mas'uuliyadda Soomaaliya iyo dadnimada Soomaaliyeed iyo diinteena dalkeena anaga wada leh aanu difaacano insha Allah ta'ala aadan idinkaga tacsiinayaa dhibkaasi naxdinta leh ay waliba khasaarahaasi loo geystay shacbiga Soomaaliyeed aadan idinkaga tacsiinaa anoo ku hadlay magaca Soomaaliya waliba magaalada Switzerland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi